wuxuu hawada ka saaray mareegihii ugu weynaa internetka sida Yahoo, eBay, CNN, Amazon iyo weliba Dell. Access granted. wuxuu geystay khasaare dhan $1.2 milyan wuxuu ka yaabiyey khubaradii loo daba fadhiisan jiray amniga internetka wuxuu ka qaylisiiyey madaxdii caalamka oo ugu horeeyo madaxweynihii waddanka Mareykanka waagaasi ee Bill Clinton wiilka aan ka hadlayaa waa Michael oo loo garan ogaa AKA Mafia Boy waa 15 jir Kanadiyaan oo jabsaday qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida isagoo aan ogeyn inuu taariikhda gali doono muuqaalkeenna maanta daawadayaa waxaynu wax ka baran doonaa taariikh nololeedka 15 jirkan adduunka ka yaabsaday shirkadka iyo mareegaha uu jabsaday iyo weliba halkuu ku dambeeyey magacaygu waa Guuleed Saahid soo dhawaada muuqaalkeenna maanta Michael waxa uu ku dhashay dalka Canada isagoo yar ayay waalidiintiisu kala tageen wuxuu la noolaa hooyadii halka aabihiina soo booqan jiray maalmaha fasaxyada oo kaliya kolkuu 6 sano jir ahaa Michael aabihii wuxuu u keenay laptopkiisii shaqada si uu ugu madadaasho jeer kale uu ka weheshado dareenka cidlanimada ee ay ku keentay aabbalaanta iyo saaxiib la'aantu Michael ma noqon mid kaliya ku madadaasha laptopka wuxuu bilaabay wax isbari joogto ah akhrinta buugta ay ku qoran tahay culumta kombiyuutarku sidoo kale gacanka qabashada culumtii uu weeleeyay sanado yar kadib aqoontiisii way siyaaday wuxuu sameeyey isku dayo badan oo barhkood guulaysteen halka barhkoodna fashil ku soo gabagaboobeen hase ahaatee da'da uu jiray waagaa kolka loo eego xiise yeelanaya soo jeed badan isku day badan oo uu ku fashilmay iyo caqabado kale oo uu kaga sheekay buuggiisa Mafia Boy may noqon kuwa niyad jabiya taa beddelkeeda wuxuu xiiseynayay fikradda ah in qof kaliya uu weerari karo qof kale iyadoo aan loo eegin masaafada u dhaxaysa iyadoo la adeegsanaya internetka Michael wuxuu ku biiray koox hackers oo loo yaqaanay IWC intii uu ku jiray kooxdana hogaamiyaha kooxda iyo xubno kale ayaa baray sida kombiyuutarka qof kale loo weeraro sida looga damiyo qofkaas kombiyuutarka sida looga masaxo xogtii ugu jirtay sida loo dhaco akoonadiisa sida loo sameeyo viruses lagu waxyeeleeyo kombiyuutarka iyo waxyaabo kale oo badan muddo kadib wuxuu ku biiray koox hackers oo kale oo lagu magacaabo TNT Force kooxda TNT Force waxay ahayd koox hackers oo caan ah intii u dhaxaysay 1990kii ilaa laga gaadho bilowgii 2000 kooxdan waxay caan ku noqotay weerarada iyo xadgudubyada amniga internetka waxay ka mid ahayd kooxaha ugu saameynta badan xilligii ay jireen waxayna kaalin muhiim ah ka ciyaartay isbedelada iyo horumarka amniga internetka TNT way ka weyneyd oo ka ballaadhnayd kolka loo barbardhigo kooxdiisii hore ee IWC waana barta uu kula baxay magaciisa AKA Mafia Boy intii uu tababarka iyo wax isbaridda ku jiray Michael wuxuu jabsaday systemiska shirkado yaryar kuwa ganacsi iyo kuwa jaamacadeedba wuxuu waqtigu isku raba horaantii sanadii 2000 Michael wuxuu hawada ka saaray badi shabakadihii ugu waaweynaa dunida wuxuu seerfariska shirkadaha uu jabsaday u diray amarro badan oo isdaba jooga kuwaas oo ay la qibsan kari waayeen fahmina waayeen arrintaas oo sababtay in gebiba hawada laga waayo shabakada ay ugu horeysay Yahoo oo markaas ahayd xog
raadiyaha amase seejinka koowaad ee dunidu wax ka baadhi jirtay. kadibna wuxuu jabsaday shabakadaha ay ka midka yihiin eBay, CNN, Amazon iyo weliba Dell. khasaarihii ka dhashay weeraradaas oo lagu qiyaasay inay gaadhaysay $1.2 milyan islamarkaana iftiimisay sida fudud ee lagu jabsan karo xogta websaydyadaas ku kaydsanayd, waxay dhalisay in siyaasiyiinta dunidu ka qayliso ammaanka mareegaha dunida. madaxweynihii waddanka Mareykanka ee waagaas ee lagu magacaabi jiray Bill Clinton ayaa ka mid ahaa madaxdii degdega uga jawaabtay saamayntii weerarkaasi reebay, waxaanu shir degdega isugu yeedhay golihiisa qaranka kaasoo lagaga arrinsanayay ammaanka internetka. laakiin ugu dambayn calaacasha Michael ayaa la helay, booliskuna waxay soo raaceen raadkii jabsadaha shirkaadka ilaa uu gaadhay Michael oo aan wax raadgadasho ah samayn. waxaa lagu helay dembi, waxaa la saaray xayiraad adag, inkastoo uu daayar ahaa si looga ilaaliyo inuu mar kale khatar u keeno shirkadaha internetka ayaa xayiraad adag dhakada laga saaray. wiilkaas daadiisu aadka u yareyd wakhtigaas ee khasaaraha adduun ee intaas leeg sababay oo hadda ah nin dhalinyaro ah, la taliyana u ah shirkado waaweyn dhinaca ammaanka iyo ilaalinta xogaha netka, ayaa dhowaan waraysi uu siiyey mid ka mid a shabakadihii uu dhibaatada u geystay ee CNN ayaa sheegay inay weli jirto dhibaatadii dhinaca ammaanka ee uu xilligaas iftiimiyey. ugu dambayn aynu intaa ku soo gunaanidna muuqaalkeena maanta. haddii aad ka heshaan soo tabinta sheekooyinkan oo kale amase falalka ay ka geystaan netka hakarijku, haddii aad ka heshaan soo tabinta sheekooyinkan oo kale amase falalka ay netka ka geystaan hakarijku, waxaad dahabkiina noogu reebi doontaa qaybta hoose ee kommentiga. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay way wanaagsanaan lahayd inaad nagu soo beerto si aan u gaadhno 10,000 oo sabskaraib. taa beddelkeeda adiguna aad hesho sheekooyinku dheefsiiya waayo aragnimo nololeed oo aanad sinaba ku hesheen. waa tahay saaxiibayaal, waa guuleed shaahid oo idin leh. inta aynu muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.